ugu dambeyntiina haddii in badan aad maqashay waddan hebel ama shariikad hebel ayaa waxaa la qabtay cid u basaasaysay marka sheekadu sidii hore way soo dhaaftay waddanka hindiya ayaa waxay hayaan shimbir ay sheegeen in si sharci darro ah hadda waa shimbir si sharci darro ay horta uga soo tallowday xadka u dhexeeya labada waddan hindiya waxay tidhi shimbirtani may ahayn shimbir caadiya ee waxay ahayd shimbir bakistan ay u soo dirtay oo ay ugu tala gashay markaasi in ay u soo basaasto shimbirtani halkay ka tallowday baa haddaba arrinta sii murgisay waxa weeye gobolka kashmiir ee ay ku muransan yihiin labada waddan ee labaduba hubka nuclearka haysta ee hindiya iyo bakistan haddii haddaba aad isweydiinayso shimbirtu ma caqli bay leedahay oo tolow sidee bay wax u basaasaysay hindiya waxa ay ku andacoonaysaa shimbirtan in uu ku xidhan yahay wax kaatunoo kale ah oo markaa ay baadhayaan si ay u ogaadaan markaa macluumaadka la doonayay in shimbirtani ay soo duubto laakiin waxaa kaloo laga yaabaa inaad adiga iyo aniguba aynu isweydiinno shimbirtu miyaanay dee meeluun u kacaynin marka ay duusho sida marka ay u abbaarayso halkii loogu talagalay in macluumaadka ay ka soo duubto hindiya waxa ay leedahay shimbirtani waxay ahayd shimbir tababaran oo xirfadeedu weliba ay aada u sarrayso baadhitaankiina uu noo socdaa laakiin bakistan ayaa warbaahinteedu waxa ay qoraysaa in nin ku nool tuulo kulaalaysa halka xadku uu ku yaallo ee badha gobolka kashmiir oo shimbiro fara badanna haystay isagu uu ninkaasi maalintii iidii deedna shimbirihiisii sii daayey si damaashaadka ay uga qayb galaan oo deedna intii kale ay u soo noqotay laakiin shimbirtaasi iyadu xaggaa iyo hindiya malaha isaga dalxiis tagtay waa sida bakistan ay ku doodaysay horta war jiraaba cakaaruu iman doonaa wixii jiraaba way soo bixi doonaan laakiin arrintani ma aha tii ugu horreysay baa la leeyahay ee shimbiraha loo adeegsado in ay wax basaasaan waddanka bakistan laftiisa ayaa hindiya waxa ay sheegaysaa in sanadkii 2014 ay ka qabteen shimbir kale oo iyaduna basaasad ahayd baa layidhi oo xagga bakistan ka socotay laakiin waxaan u malaynayaa sida wararku ay sheegayaan weli lama hayo shimbir ka timid dhinaca waddanka hindiya oo iyadu basaasaysay dhinaca waddanka bakistan maadaama labada waddan tartan xoog leh oo dhinac walba hadday noqoto dhinaca militariga iyo dhinaca wardoonka uu u dhaxeeyo shimbirtaa hore ee la qabtay dhowr sannadood ka hor ayaa waxa la iyada waxa soo qabtay inan yar oo 14 jira oo markaa ka war helay shimbirtu inaanay ahayn shimbir caadi ah ilaahay ha u naxariista xaliimo khaliif magool heesteeda caanka ayay iyana shimbir diratay heestaasi iyada jacayl baa loo dirayay laakiin markan xaalku waa ka duwan yahay sida labada waddan ay sheegayaan sida hindiya ay ku doodaysa haddaba shimbirtani aad iyo aad bay ugu dadaalaysay oo ay ugu shaqaynaysay waddanka bakistan laakiin ninka iska lihi waxa uu ku doodayaa waxa la moodayo qalabka basaasidda iyo waxa shimbirta ku qoran in ay yihiin buu yidhi horta waa telefoonkiisa siduu sheegay numberka lagala soo hadli lahaa haddii shimbirtaa la helay sida imikaba loo helay iyadoo baadiya buu yidhi waa ninka bakistaanigii sida uu ku doodaye markaa waana arrin caadiya baa la yidhi oo aad iyo aad caan uga ah waddanka bakistan in dadku ay shimbiraha ku qortaan nambaradooda haddiiba markaa iyagoo baadiya la helo si loogu soo celiyo arrintan ayaa waxay xusuusisay arrin imika caan ka ah magaaladan hargeysa iyo magaalooyin kale oo ah in geela iyo adhiga labadaba lagu qoro nambarada dadka iska leh marka halkii laga baadi dooni jiray la odhan jiray rid noocaasa bay ahayd ama awr noocaasa buu ahaa imika haddii la helo xoolahaasoo baadiya way sahlan tahay in la soo garaaco qofkii markaa iska lahaa waa haddii laakiin nambarku uu ku qoran yahay laakiin maaha tani tii basaasnimada